asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada waa muuqaal cusub iyo channelkeeni taatikada kubadda. muuqaalkan maanta asxaabay waxaynu kaga hadlaynaa dhacdo aynaan hore uga hadal dhacdo ama wax la mida aynaan kaga hadal channelkeenan. waa dhacdo runtii ama qiso la yaab leh oo aad iyo aad u cajaa'ib ah oo dadka oo dhan wareerisay oo aad loo hadalhayo oo luuqado badan lagu qoray, laakiin weli ma arag cid luuqada Soomaaliga ku qortay ama cid luuqada Soomaaliga ku soo gudbisay. Sidaa darteed waxaan jeclaystay inaan idila wadaago inkaarta Bella Gutman iyo naadiga Benfica. soo dhawaada asxaabay idinkoo mahadsan. maxay tahay inkaarta Bella Gutman? sayuu yahay Bella Gutman? maxaa isku xidhay inkaarta Bella Gutman iyo kooxda Benfica? sheekadan waxaa doonayna ka warano waxaynu tegaynaa 1959 ee qarnigii ina dhaafay. xagaagii 1959 kooxda Benfica ayaa la soo saxeexatay tababaraha Hungarianka Yahuudiga ahaa ee waqtigaas kubadda cagta aadka caanka uga ahaa ee soo haystay kooxo sida Milan oo kale, sida kooxda Porto oo kale, Sao Paulo Brazil oo kale. kooxo badan ayuu tababaro soo noqday. waxa uu ahaa tababaro runtii magac weyn leh, tababaro sumcad ku leh ayuu kubadda cagta u ahaa. Bella Gutman waxaa ku qornaa ama contractii ama heshiisku la galay kooxda Benfica waxaa ku qornaa runtii sharad aad iyo aad la yaab badan. sharadkaas wuxuu ahaa in aan shaqada laga heri karin ama aan laga tuuri karin haddii uu yahay ama haddii uu horyaalka uu hogaaminayo. runtii waa sharad laga yaabaa waqtigeenan maantana kuma aragno cid qandaraasyada waxaa ku darta, laakiin sabab ayaa ka dambayso kooxda AC Milan ayaa kasoo riday dhowr sano ka hor intaanu Benfica qabsan. kooxda Benfica ayaa shaqada ka cayrisay isagoo horyaalka hogaaminaya, si darteed muu jeclaysan in la eriyo mar labaad isaga oo hogaaminaya horyaalka. anyway qisadan maanta aan doonayna waxa weeye inkaarta Bella Gutman haysata ama qabsatay kooxda Benfica. 1961 kooxda Benfica ayaa gaadhay finaalka tartanka Champions League iyaga oo la ciyaaray kooxdii waqtigaas qaaradda Yurub qabsatay, kooxda awoodda ugu weyn ahayd qaaradda Yurub ee Real Madrid oo mar 5 jeer isku xigta ku guuleystay tartanka Champions League. Benfica oo ahayd koox loo kala oo ku guuleystay kaliya horyaalka Portugiiska ayaa tagtay koobkii ugu weynaa ee ugu caansanaa Yurub. weliba waxay la ciyaarayaan kooxdii ugu weyneed 5 jeer isku xigta soo hanatay. waynu garanayna Real Madrid xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay 3 jeer isku xigta ay qaaday, laakiin markaas 5 jeer isku xigta ayay ku guuleysatay. Benfica ayaa la ciyaartay Real Madrid, nasiib wanaag way ka adkaadeen waxayna ka qaadeen tartankii Champions League. kadib markii kooxda Benfica ay ku guuleystay markeedii ugu horeysay tartanka Champions League, tababarahan Bella Gutman ayaa u arkay inuu qalmo in loo kordhiyo mushaharka ama gunada uu ka qaadanayo kooxda reer Portugiis. laakiin Bella Gutman waxa uu qaatay in mushahar kordhinta ama guna kordhinta loo garan doono oo ay iska soo garan doonaan mas'uuliyiinta oo la oran doono waa lagu kordhiyay, saaxib loo tumi doono, la soo dhaweyn doono, xaflad loo qaban doono. laakiin taas ma dhicin. markii naadiguna xafladda uu dhiganayay kaliya saaxib baa loo tumay bis halkaas laga dhaqaaqay. Bella Gutman wuxuu arkay inaan inta u qalmin, wuxuu u baahday lacag sayida, lacag dheeraad ayuu u baahnaa. waqtigana lama qaadan jirin mushaharaadka hadda tababarayaasha ay qaataan. tababarayaashan malaayiinka qaata ma ahayn, lacag yar oo iska raqiis ay qaadan jireen si shaqaale kastoo la mid ah waqtiga joogay. darteed wuxuu u arkay inuu u qalmo in loo kordhiyo mushaharka. adigu uu iska dhaafay waxa uu doortay inuu xilli ciyaareed kale kooxda uu sii haysto, xilli ciyaareedka kalena uu kula guuleysto tartanka Champions League si markaas adduunka oo dhan loo arko inuu yahay tababaro qalmin lacagta loo kordhiyo. sidoo doonaya ayaa dhacday oo mar kale ayay kooxda Benfica timi finaalka tartanka Champions League. markana waxay la ciyaareen kooxda cadowga Real Madrid ee Barcelona. mar kalena way ku guuleysteen 2 jeer oo xiriir ah kooxda Benfica ku guuleystay tartanka Champions League. runtii wax la yaab leh ayay noqotay kooxda Benfica oo markii ugu horeysay ku guuleystay sanad ka hor ayaa mar labaad suxita ku guuleystay, weliba ay ka kala guuleystay Real Madrid iyo Barcelona. runtii adduunka oo dhan la dhex qaaday waxayna noqotay sheekadii waqtigaas ay noqotay. Bella Gutman ayaa yiri imika khasab way garan doonaan, mushaharkana la kordhin doonaa, nolol wacan waan ku noolaan doonaa. mar kale looma kordhin, sacabka ayaa loo tumay. Bella Gutman tababaro wanaagsan intaas lagu dhaafay kaliya iska tagay. laakiin Bella Gutman taa uu ka seexan waayay, wuxuu yiri si maaha, waa inaan helaa waxaan xaq u leeyahay, waa inaan helaa mushahar kordhinta, waa in gunadeena la kordhiyaa. waxa uu u dhaqaaqay xeradii waqtiga kooxda Benfica, gurigii weynaa ee kooxda Benfica. wuxuu la kulmay madaxweynihii kooxda, mas'uuliyiintii ugu waaweynaa ayuu la kulmay, wuuna salaamay, waxaana la soo dhaweeyay. waxa la yiri ku soo dhawow Champions of Europe, halyeeyga qaaradda Yurub, soo dhawow, maxaan ku qaban karnaa. waxa uu dalbaday kaliya in loo kordhiyo mushaharka, wax kale ma dalban. ciyaartoyda la soo iibiyo ma dhihin, ciyaartoyda laga fasaxo ma oran, garoon cusub hal la dhiso ma oran, sidan hal yeelo ma dhihin. kaliya wuxuu yiri waxaan u qalmaa in mushaharka la kordhin karo, waxaan doonayaa mushahar kordhin, lacag intaan qaato in ka badan ayaan u baahanahay. madaxweynihii kooxda Benfica waqtigaas fikradaas ma caajibin, wuxuuna ku yiri cidna ma qaadan karto lacag
intaas leegaas sheegatay cidna kumana siin karno ee wad naga raalli ahaanaysaa. Bello Gutman runtii muu aqbalin soo jeedinta madaxweynaha kooxda Benfica, wuuna xanaaqay, albaabka ayuuna ka baxay isagoo oo dadka oo dhan wada maqlayaan wuxuu yidhi kooxda anaa keenay 2 koob oo qaaradeed 100 sano kadibna kooxdan ku guuleysan mayso koob dambe oo qaaradeed. 100 sano maanta marka laga joogo Benfica koob dambe oo qaaradeed ku guuleysan mayso. Haddaba inkaarta Gutman waa tan kooxda Benfica tan iyo maalinta uu ninkaas hadalka uu yiri ama tan iyo 1962 waxa ay gaadhay 8 jir ay gaadhay finalada Yurub 8 jirna oo laga adkaaday. dadka qaar waxay isweydiiyeen inkaar caadiyaba ninkan ma ka dhaba sidana yacni way rumowday kooxdii Benfica kooxdii labada jeer isku xigta ku guuleysatay waxa loo arkayay in kooxdu awoodeeda ay tahay ciyaartooyada waxa loo arkayay dhismaha kooxda hoose waxa loo arkayay yacni coachka in dadka qaar way garanayeen awood qayb qaadan kara oo kamid yahay awoodaha Benfica ku guuleysatay laakiin waxa la yiri ninkani ma aha sababta koowaad ee Benfica ku guuleysto labada tartan ee Champions League ee xiriirka laakiin sanad kadib 1963 kooxda Benfica ayaa mar kale gaadhay finalka tartanka Champions League oo markii saddexaad oo xiriir ah ay gaadho Benfica laakiin markan Bello Gutman tababaro maaha sidarteed Milan ayaa ka adkaatay oo ku guuleystay tartankii Champions League 2 sano kadib 65 ayaa soo laabatay kooxda Benfica markana Gutman tababaro maaha markana oo laga adkaaday oo Inter Milan ayaa ka guuleystay tartankii Champions League markaas ayaa la yiri tolo maxaa ka jiray karti Gutman dadkii way isweydiiyay waxba khaldan Gutman inkaartiisa waxba ka jira tolomiina sixray tolomasan u yeeray dad waxay isweydiiyeen sidarteed waxa go'aan lagu gaaray in Bello Gutman la soo celiyo oo la keeno kooxda Benfica oo ku soo laabto wuxuu soo laabtay 1965 wuxuu joogay ilaa 1967 Bello Gutman waxa la siiyay mushaarkii uu doonayay lacagtii uu doonayay la siiyay laakiin ilaa Bello Gutman ay jabin kari waayeen kartii Bello Gutman intuu haystay kooxda Benfica labadii sano uu haystay kooxda Benfica ma bay gaarin ba final ama tartanka Euro finalkiisa ma bay gaarin ba laakiin isla markii Bello Gutman uu kooxda mar kale uu ka dhaqaaqay ee uu ka tagay sanadkii ku xigay Benfica waxay gaadhay tartanka Champions League ay haddana finalkii gaadhay 1968 markana sida filimada laga guuleystay Man United ayaa ku guuleystay tartankii Champions League 1983 bay haddana yimaadeen oo tartanka UEFA Europa League finalka gaadheen Anderlecht oo Belgium ka socotay ayaa ka guuleystay 1988 bay yimaadeen PSV Eindhoven ayaa ka guuleystay 1990 ayaa hadaba la yimi Milan ayaa mar kale ka guuleystay kooxda Benfica 2013 ayaa ugu xigtay oo ay gaadheen tartanka UEFA Europa League oo wada garaynaa kooxda ku dhaceen Chelsea ayay la ciyaarayeen waxayna kula kulmeen garoonka Ajax Amsterdam ee Johan Cruyff Arena finalkii 2013 markii la gaadhay ee Benfica ay la kulmaysay kooxda Chelsea dad kooxda kamid ah ayaa go'aansaday in loo dhiso Bello Gutman sanan in loo dhiso garoonka Stadio de Lucerto looga dhiso oo ay waqtigaas u dhintay oo isaga lama weydiin kareen wax lagama su'aali kareen sidarteed waxa ay go'aansadeen in sanan looga dhiso lacala ama intaas oo ay ka yaraataa inkaartii oo ay baabaadaa kooxdana ugu dambeyntii ay ku guuleysataa tartan qaaradeed iska daa inay kooxdu ku guuleysato tartan qaaradeed horyaalkii oo ay hayeen waqtigaas koobkii Portugal oo ay gaadheen iyo UEFA Europa League saddexdiiba waa laga qaaday saddexdiina midna kuma ay guuleysan kooxda Benfica markaas ayaa la yaqiinsaday in uu jiro inkaar weyn inkaarka awood badan jirto laakiin ugu daran waxa weeye markii ay gaadheen 2014 tartanka UEFA Europa League yani sanadkii ku xigay haddana ay soo gaadheen sidaynu wada filanayna markana oo laga guuleystay kooxda Sheffield ayaa ka guuleystay horyaalka kaga adkaatay marka ilaa iyo 1962 laga soo bilaabo ilaa iyo maanta kooxda Benfica waxay gaadhay state final oo tartamada qaaradda Yurub 8 oo laga adkaaday waana sidii uu sheegayay Bello Gutman uu sheegay 100 sano kadib maanta xitaa ku guuleysan meysaan tartan qaaradeed dadka taageera Benfica ayaa weli cabsi weyn ka qaba haddii ay koob kale ay gaadhaan inaanay ku guuleysaneen waxaana noqotay hadalhaynta ugu weyn kubadda cagta ma dhici kartaa in qof hadalkii ay u istaagto ama mustaqbalka wax dhan u baabaado dhici kartaa in qof hadalkii ay waxa soo dhibaatay kooxo haleesho qof hadalkiisa soo dhan ma awood badan yahay Bello Gutman hadalkii uu sheegay ilaa iyo maanta kooxda Benfica uu haystaa runtii wax la yaabo wax cajiib ah waana waxyaabaha ugu waalan kubadda cagta ka dhici kara muuqaalkana maanta asxaabintaas inuu yahay waxaan filayaa in idinkaga yaabiyay oo aad la yaabteen haddii adan hore maqal fadlan haddaad ku cusubtahay channelka haylowna subscribe taraado gamalka darato si ay ku soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeya haddaad hore subscribe garaysan fadlan like saaxiibadana la share gaare muuqaalada dambana la socda haddaad jeceshay inaan idin soo sameeyo muuqaalo sidan oo kala cajaayibaadka kubadda cagta waxyaabaha lala yaabay kubadda cagta ee ka dhacay khanka kuntiga gureeba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh